xogeeye Siciid Nuurna waxaan leeyahay heestii loo qaaday miyaad ka baxdaa qulubta aad iyo aad baad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim Allahu akbar ilaahu hirgeli maalin aynu dhagax dhigayno wada aad iyo aad magaalada Hargeysa muhiim ugu ah run ahaantii wadadani waa wado ku dhismaysa iskaashi ka dhaxeeya dawladda hoose ee Hargeysa iyo bulshada iyo deegaanka halkan ku dhaqan run ahaantii kulankii isku kaaya dambeeyay maalintii isku kaaya dambeysay ilaahay waxaanu ka baryaynaa baan nidhi inuu ilaahay nagu sakhiro oo noo fudaydiyo bisha December hadii la yiraahdo balan baanu qaadnay hoteelka waxaanu fadhiisanay geesh qureec bay ahayd gudidu markaa maalmaha waxa ku yar jiray shaki iyo culays because of lacagta ay hayeen muddo ka hor ayay shubeen oo waqti baad ka soo wareegay runaantii dawladda hoose iyadoo doonaysa inay kala horeysiiso mashaariicda ugu jira ayaana dib u dhaca keenay maanta ilaahay mahadi mar hadaynu maanta dhagax dhigayno wadadaas way noo dhameystirmi doontaa wadadan lacag badan baa geli doonta lacagta gelaysa qayb kamida iyo percentage kamida waxa bixiyay dadka deegaanka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa run ahaantii malaha mararka qaar kood waxa la yiraahdaa meelaha qaar kood baa lacag badan bixiye qoladan waxay soo bixiyeen $80,000 waa lacag aad iyo aad culeyskeeda u leh runta marka laga hadlayo marka reer Hargeysa deegaan kasta iyo degmo kastaba qaaraanka si weyn baa loo soo bixiyaa degmooyinka wadooyinkuna laba qodob bay ku kala dhismaan mid 100% cashuurta laga maalgeliyo dawladda hoose Hargeysa iyo cashuurta dadweynaha iyo mid iskaashi bulshada labada qodob bay ku hirgalaan wadooyinka inoo dhismaa marka 2% markaanu eegno miisaaniyadda guud ayay ka tahay iskaashiga bulshadu 2% ayay ka ahayd miisaaniyaddeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guud ahaan bulshada ku dhaqan degmada dhagax waxaan ka codsanayaa dhamaantood inay runtii garab istaagaan bulshaduna ay runtii qayb walaxaad la ka qaatorna way qaateen waa inoo taariikh runtii bulshadana waa wax wanaagsan oo soo kordhay wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka runtii ugu qiimaha badan ee degmada ku yaala cabirkeedu waa 2 kiiloomitir iyo badban saaka insha Allah taala bilaabi doona waxaan rajeynayaa wadadan in insha Allah taala bilicda iyo isku xidhka gaadiidka caasimadana qayb laxaad la ka doonto waxaanu soo ururinay marka loo eego maayo wadada lacagta ku baxaysa waa wax aad u yar dadka marka waxaan u sheegnay wixii aanu soo ururinay waa wax yar inta kale dawladda hoose ay Hargeysa ku darasa meel kalena ma hay waa cashuurteeni inagana waa inaan dawladda hoose la shaqeynaa waxaan halkan maanta fariin uga dirayaa dadkii deegaanka ahaa ee lacagta contribution-ka in wadada ka qayb qaadanay soo bixiyay muddada dheer anagana naga dhur sugayay in maanta wadadii la dhagax dhigayo oo hawshaas ay naga dhacday lana bilaabayo marka inaad sidaa kalsooni buuxda ku qabtaan ayaan filayaa sidaa xoogayuhu sheegeen maanta ay deyntii qolada iyadii gudida ka hadhay